munaasabad lagu maamusay xulka gobolka Sool ayaa lagu qabtay dowladda hoose ee degmada Laascanood waxaana soo qabaqabiyay maayarka degmada Laascanood waxaana ka soo qayb galay maayarka degmada Laascanood Cabdicasiis Xuseen Taruure ahna gudoomiyaha golaha deegaanka xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda ciyaaraha ee gobolka Sool iyo mas'uuliyiin kale iyo xulka gobolka Sool waxa uu horeyntii halka ka hadlay mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda ciyaaraha gobolka Sool iyo marti sharaftii ka soo qayb gashay iyagoo la si gaar ah uga mahadnaqay munaasabadda uu soo qabaqabiyay maayarka degmada Laascanood gabagabadii waxaa isna nidiciisa ka hadlay maayarka degmada Laascanood Cabdicasiis Xuseen Taruure xafladan maanta halkaan ku hayno waxaan ugu talagalnay inaynu ku dhiirigelino xulkii ciyaartooyga gobolka Sool ee dhawaan ka qayb qaatay tartankii ciyaaraha gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku soo gabagaboobay magaalada Hargeysa marka koowaad waxaan leeyahay dhalinyaro kubadu waa cadaan iyo madow tartanka waxa loo qabtay in cuduun ay ku guulaysato cidii calafkeeda baa qaaday laakiin muxuu ahaa waa cadaan iyo madow waxaan kula tartaarmayaa idayna niyad jabin oo niyadiina aad kor u sii qaataan haddii qofku mar kufo mar labaadka ma kufayo adduunyada iska saasa waxaan rajeynaynaa tartamada badan inaynu soo qaadi doono waxaan leeyahay dad badan oo ciyaartooyga oo deegaanka ku nool ciyaartooyga dhalin arkayay adduunka meel aan dhalin lahayni ma jirto waxa jiro kuwo wareegii koob ku soo gool baan dhalin ba wax gool aan dhalin wax xaflado waaweyn loo qabanay arkaysiin marka waxa la yaanaa aamino oo muxuu ahaa magaaladeena iyo gobolkeena aynu aamino kuwa waxbaan hayn ba wax loo qabanay oo lahaa muxuu ahaa gool baa tashabaqa qabay taabsin baa laga yaabaa marka waxa la yaanaa isku tashano waa dhiirigelinaa garabkiina taaganahay insha Allah xalfadan oo maayarka u qabtay xulka gobolka Sool ee dhiirigelinta ma aha maayarka markii ugu horeysay oo xalfad tan oo kala ama dhiirigelin xulka gobolka oo garab istaago maayarku wuxuu ahaa ilaa iyo maalintii xulka gobolka la xulayay ninkii saacad walba garab taagnaa xulka gobolka intii oo ka soo baxay badweyntii ciyaaraha ay ka socotay Soomaaliland koobkii mar walba uu garab taagnaa ilaa Hargeysa ilaa iyo maalintii almitada la bilaabay ilaa iyo maanta oo koobkii soo gabagaboway waana garab istaaga oo xaq u lahaa oo xulkiisii garab taagnaa maayarku waa ku amaanaynaa maayarka garab istaaga oo gobolka garab istaagay waxaana fariin u direynaa mas'uuliyiinta kale ee la midka ah ee u dhashay gobolka Sool ama gobolka ha ahaadaan ama kuwa caasimadda jooga inay iyaguna saas oo kale u garab istaagaan ciyaartooyda xulka gobolka Sool sanad walba ciyaaraha gobolada markaan tagno waxaan la kulannaa damaha markii ugu horreeyay maayarku uu dhiirigelin u sameeyay bahda ciyaaraha ilaa Hargeysa uu nala socday xaaladda uu ka warhayay sidii koobkii Sool Cup seerayada loo qabtay maayarku ka qayb qaatay bahda dawladda hoose iyo golaha deegaankuna way ka qayb qaatay maayaradii hore markastana way garab taagay bahda ciyaaraha marka inta ka gudbo dhalinyarada waxaan halkan uga mahadcelinayaa matalaysay xulka gobolka Sool sidoo kale dhiirigelinteena ha ahaato mid joogta baan leeyahay marka koobaad maayarka degmada Laascanood Cabdicasiis Xuseen Taruure oo munaasabadan ku sharfay xulka muxuu ahaa gobolka Sool way soo raagtay saan filayo anigu fikir ahaanteeda laakiin wali muxuu ahaa way fiican tahay in la sharfo waxaan kaloo halkan uga mahadcelinayaa xulka gobolka Sool ee ugu horeeyay wasaaradda ciyaaraha isboortiga iyo balaayirintii kubadda ciyaaraysay guushii ay soo hooyeen level kasta ay haato iyo akhlaaqdii iyo sidii fiicnaaya muxuu ahaa ay uga qayb galeen koobkii muxuu ahaa gobolada Soomaaliland waxaan rabaa inaan halkan ka bogaadiyo dhalinyarada isboortiga gobolka Sool oo anigu aan si gaar ah u jeclahay wajiyadooda garanayo iswada garanayno waxaan leeyahay muxuu ahaa maayarkana way idiga mahadcelinaynaa muxuu ahaa soo dhaweyntiisa annaguna odayaal meel fadhiya ma nihin markaan insha Allah meel fadhiisano
baan muxuu ahaa asumado maqaamkooda sareeyo insha Allah aanu idin sameeynaa hadii natuhimaysan baan u maleynaynaa marka insha Allah aad baan maxay idin soo dhaweey runtii xafladani maanta waa xaflad weyn waxaynu ku soo dhaweynaynaa ama ku dhiirigelinaynaa xilkeena gobolka Sool aynu ognahay inay ka soo dabaasheen ciyaartooyo badan intii gobolada ciyaaraha Soomaaliland socdeen kaalin muhiim ah ka galay kubadu waa barcad iyo barmadow nasiibku marba xulkii muhiimadu waxa weeye in dhalinyaradu ay dhiirigelin badan tahay markasta iyo mar walba waxaan hadda mar labaad ugu midaynayaa duqa magaalada center wali aad baa mahadsantahay waxaa shahaado sharaf yalle guddoonsiye mas'uul ka tirsan wasaaradda ciyaaraha ee gobolka Sool iyo golhayihii gobolka Sool Yuusuf Labaasa Khadar Tarabib Badda Aswad 4 TV